بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا براهن كلنا سوشيال ميديا سيدا برتين يوتيوب كي دوبيا ميديا iyo sidoo kale barta kale Facebook ee MDobi qodobada aan idin wadnana waxa kamid ah maalin weyn ay noo tahay in ugu dambeyntii Soomaaliya ay si rasmi ah xubin uga noqotay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Tanzania ayaa maanta goobjoogka halka Soomaaliya loogu ogolaaday kamid noqoshaha bulshada bariga Afrika warbixintaasina waa idin soo gudbin doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmedna oo soo dhaweeyay isla markaasina sheegay bilowgeed inuu lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen Robles uu soo dhaweeyay warbixintaasina qayb ayay ka tahay marka shirka wuxuu ahaa saddex arinta koowaad waa arinta fatahaadaha oo daadadka roobabkii u geystay El Niño arinta labaad waxay ahayd xaaladda amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidii loogu guuleysan lahaa qodobka saddexaad oo aad loogu hadlay waxay ahayd arrimaha siyaasadda oo ugu horeeyay dastuurka waxaa la isla qaatay dastuurkan inuusan ku meel gaar ku sii jiri karin oo dastuurkii la dhameystiro uu noqdo dastuur dhameystiran xilligii la ansixiyay 2012 ilaa hadda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya koonfur galbeed ka soo jeedo ayaa isku raacay saddex anjadno oo maalmahan ay baydhabo kaga shirayeen ee ka mid tahayna dhameystirka dastuurka iyo sidoo kalena la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kalena qayb ka ah arinta la xiriirto ee gurmadka fatahaadaha warbixintaasina qayb ayay ka tahay buundada bu'aale ee jubbada hoosena way go'day fatahaad webiga jubba u sameeyay iyo dadkii saameyn oo ku yeeshay qawaaridtana ee al-shabaab aysan u gurmayn xog la xiriirtana waa idiin soo gudbin doonaa ayagoo faahfaahsan anigoo Muslim Maxamed Cali aan kuu soo jeedinay balse daawadeena sharafta leh adigana daawanay hadeeta markii kugu horeysay YouTube-keena ee Dobiya Media ana dul imaadid aan subscribe-ka noo saarin fadlan calaamadda gudaha subscribe-ka saar gambeelkana furo si aan macaamiil joogto u noqono sidoo kale barta Facebook ee MDobi follow hadeena soo dhihin followna soo dhif video-ga like noo soo asxaabta la sii wada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan caruusho isla markaasina wadanka Tanzania oo lagu arinsanayay dalalka ku midoobay ee bariga bulshada Afrika ayaa maanta goobjoog asigoo ka ah halkaasi Soomaaliya codsi ay dhiibatay lagu aqbalay inay ka mid noqoto waxaana tahay tilaabo Soomaaliya ee qaaday dhanka iyo waliba bulshooyinka ee la dhaqan tahay arintaasi tarankiisii hore waqtigii 2016 oo ahaa mid uu rabay inuu ku biiro balse markii uu soo laabtay sanadkani 2022 ayuu si rasmina u dadaalgalay Daawud Awees wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sharaxayaa Soomaaliya guusha u soo hooyatay iyo faa'iidooyinka ay u leedahay dadaalada ay gashay mahadsanidin maalin weyn ay noo tahay in ugu dambeyntii Soomaaliya ay si rasmi ah xubin uga noqotay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ururkan ujeedooyinka ugu weyn loo asaasay waxa uu ahaa inuu isku keeno dalalka gobolka ku yaala marka Soomaaliya oo xubin ka noqotay waxay ka dhigan tahay in iyana ay ka faa'iideysan doonto ama qayb ka noqon doonto dhammaanba ajendayaashii hore loogu heshiiyay urur goboleedkan iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika uu yeelanayo waxaa ka mid ah iskaashi dhinaca dhaqaalaha oo wadamada ay yeelanayaan waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada ah in isku socodka uu noqdo mid xor ah waxaa ka mid ah dhinaca ganacsiga oo runtii Soomaaliya noqon doonto mid si weyn uga faa'iideysata waayo waqtigan xaadirka la joogo kumanaan Soomaali ah ayaa ka ganacsata dalalka xubnaha ka ururka bariga Afrika marka Soomaaliya ku biiritaankeeda faa'iido ay laba jeer u leedahay markaan u fiirino Soomaaliya sababtoo ah ganacsada Soomaaliyeed ee haatan ku sugan goobahaas ama dalalkaasi bariga Afrika waxa ay si automatic ama si rasmi ah u helayaan xuquuqdii muwaadiniinta bariga Afrika ee ka ganacsanaya dhulalkaas oo aan loo arki doonin inay yihiin dalal dad ka yimid meel fog oo loo arkayo dad ka ganacsanaya ama howlo ka dhaxwada urur goboleed dalkooda uu ka mid yahay marka dhanka kalena war qoraal oo soo saaray madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu soo dhaweeyay Soomaaliya ku biirista ee ku biirtay bulshada bariga Afrika asigoo sheegay bilowgeeda inay ahayd sanadka 2012 oo xilligaasi dowladda uu madaxweyne ka ahaa kalena madax kale oo fara badan inkastoo soo dhaweystay oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya maxamed xuseen Roble oo sheegay inay tahay
bilaabo wanaagsan oo qaaday dowladda Soomaaliya guulna shacabka ay u soo hoyday maadaama ay ku biirtay bulshadaasi bariga Afrika. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed waxaa lagu soo gabagabeeyay ee u socday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed iyo maamulkaasi madaxweynaha hogaamiyo goobjoog waxaa ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. kulankaasi oo maalmihii la soo dhaafay socday ayaa wuxuu ujeedkiisu ahaa 3 arrimood oo ugu horeyso arrinta fatahaadda ee Soomaaliya ka dhalatay gaar ahaan Koonfur Galbeed ku dhufan sidii gurmud loogu sameyn lahaa iyo sidoo kale dabargoynta kooxda khawaarijta Al-Shabaab. midda siyaasadeedna oo ahayd arrinta la xiriirta dastuurka isla markaasina ku meel gaarka uu yahay in laga baxo iyo sidoo kale wax ka bedelkiisa. arrintaasi oo isha lagu hayay ayaa maanta xildhibaanada ee kulanka u soo gabagaboobay ayaa waxay sheegeen ilaa iyo 50 xildhibaan labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay ahaayeen isla markaasina isku afgarteen arrimahaasi. kulankaasi oo markuu soo gabagaboobay warbaahinta uu la hadlay xildhibaan Cabdirashiid Jiiley oo ka mid ah mudanayaashii baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in la isku afgartay arrimo fara badan oo ugu horeyso in dastuurka wax laga bedelo isla markaasina uusan ku meel gaar ahaa karin. arrimaha siyaasadda oo ugu horeeya dastuurka waxaa la isla qaatay dastuurkan inuusan ku meel gaar ku sii jiri karin oo dastuurkii la dhameystiro uu noqdo dastuur dhameystiran xilligii la ansixiyo 2012 ilaa hadda dowladda Soomaaliya inaysan ku jiri karin dastuur ku meel gaar ah. wixii farsamo aan in laga wada shaqeeyo dastuurkaas sida loo horumarin lahaa in laga shaqeeyo waa la isla qaatay ayadana wixii technical ana dood badan in laga yeesho talo badan in laga galo oo la iska wareysto ayadana meel la isla dhigay. waxaa kaloo aad loogu hadlay doorasho qof iyo cod in dalku u baahan yahay gaar ahaan dadweynaha reer Koonfur Galbeed populationka Soomaaliya dadka ugu tirada badan inay yihiin oo maaragtay doorashada qof iyo codka in laga wada shaqeeyana ayadana aad hoosta la isku la xariiqay waa la isla qaatay. wararku aanu ka helnay gobolkaasi Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Bu'aale in ay gebi ahaanba ay burburtay buundadii isku xiriirsan magaaladaasi kadib markii fatahaad uu ku sameeyay webiga Jubba ee halkaasi maro. waxaana gebi ahaanba halkaasi ka baxday buundada isla markaasina isku socodka dadweynaha aysan jirin wax dhaqaaq ah halkaasi. fatahaadii oo socoto gurmadna aan la gaarsiin karin maadaama ay gacanta kooxaha burcadiimeedka ee khawaarijta Al-Shabaab ay ugu jirto. roobabka iyo fatahaadaha ka dhalatay ayaa Jubbaland magaalooyin fara badan saameysay iyadoona buundooyin sidaan oo kale ah ay gebi ahaanba burburisay sida gobolkaasi Gado, Luuq iyo Baardheere. ma jirto ilaa iyo iminka wax muuqdo ee gargaar ah ee dadka fatahaadda webiga uu ku sameynayo kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee ka sameynayso gurmad. mana jirto cid kale oo u tagi karto oo gurma karto. gudaana ciyaarta waan jecelnahay intaas ayaan ku soo gabagabeeyay tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idin tagaynaa sidaas iyo nabadiino.